السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك meel kastaa joogtaan walaalaha. Waxaan rajeynaya inaa caafimaad qabtaan. Alxamdulilah anaga waan fiicannahay. Ramadaan maanta waa maalintii saddexaad. Videogan idin duubaya insha Allah wuxuu yahay waa maamacaan oo ku wanaagsan bacdal afurka. Hadda xaggan sida arkaysaan waxaan ku haystaa waa butter. Waxaa u baahan tahay in yar oo butter insha Allah. Marka intaas yarta butterka markaan dhalaaliyo uu butterka kalarkiisa is yara bedelo mataqaana wax yar dabka kululaado waxaan ku dari doonaa insha Allah sida ila arki doontiin waxaan ku dari doonaa bananaga arkaysiin insha Allah hal xabo iyo bar waaye insha Allah xabad iyo xabad haafkiisa oo saa u soo jarjaray aan ku dari doonaa butterka markuu wada dhalaalo oo mataqaantay kalarkiisa is yara bedelo golden uu yara noqdo markaas ka bacdina waxyaalahan ku dari doon insha Allah waa ila arki doontiin soo hada butterkii aniga waqti ma haysanin maanan sugin intuu golden ka noqdo insha Allah laakiin waxa sameysaa yara sug butterka xoogaa markuu soo yara hadii uu soo yara kalarkiisa isbedelayo insha Allah ku dar bananaga marka saa u kala bixinaysaa marka waxa dabool ma saaraysid sidiisa ku daynaysaa insha Allah bananaga karis uma baahno oo already waa mid karsan waxa isticmaalaysa bananaga waxa ahaado mid karsan insha Allah marbo dhinaca ka gadgadinaysaa markuu kalarka bananaga isbedelo uu noqdo insha Allah golden isagana uu noqdo uu saa u soo karo uu saliidan mataqaana sabab butterka uu cabana insha Allah waa ka dajinaynaa ilaa idankiis hadda wakaas sida arkaysaan bananaga marba dhinaca u gadinaya insha Allah hadda waxa sameeyay bananaga waa ka dajiyay dhinaca u dhigay soo intuu qaboobaya ha qaboobo marka dhinac markaan u dhigo xagan sida arkaysaan waxaan ku haystaa weelkan aan ku haysto waxa ku watay xabad ukuna iyo waxaan ku darsaday 2 qaado ama 3 qaado oo sokor insha Allah intaas isku qasaysaa marka isku qastid qaado isticmaal ama qiyaaso insha Allah saliid ayaa ku dareynaa saliid haysatid ayaa isticmaali kartaa hadii 5 xisaabi 5 malqacad oo mataqaana saliid ku dareysaa insha Allah ama qaadada weyn la rabaa inay noqoto biidnillah intaas ka bacdi wax yar oo bur ah waxaan sameynaya ma badno insha Allah waxaan u maleeyaa waa koob haafkiisa inay qiyaasto oo bur ah iyo qaadada yarta ah mid buuxda iyo mid oo haaf oo wax dhiman oo waxaan ku daray baking powder insha Allah waa bur iyo baking powder biidnillah intaas ku daraysaa horena waxaan u haystay xabadu kuna 2 qaado iyo bar meelahaas sokor ah iyo 5 qaado saliid insha Allah iyo burki iyo baking powderki waa intaasi bas wax kale ma lagu daraayo ilaahay idinkiis intaas marka waxa sameynaysaa waa isdhex galinaysaa wax biyo kuma dareysid wax caano kuma dareysid waxba lagu mataamana insha Allah hadaa burkaaga badan yahay dama bur isticmaalaysid waxaad ku dartaa saliid insha Allah saliid qiyaasteeda badso biidnillah soo wada burka waan soo dhaxgaliyay burka waxaan ka sameyn doonaa 2 qayb aan u kala jari doonaa marka labada qayb waxaan u kala isticmaali doonaa insha Allah sida arki doontiin labada qayb markaan u jaro qayb waxaan gelinayaa freezerka xagga barafka oo hoose ayaa 10 mirir meelahaasi gelinaysa insha Allah ama ka badan adii waqti badan kuma daynaysid inuu yara fariistaan rabnaa burka uu yara adkaado insha Allah qaybta kale tana waa ila arkaysiin saxankan ku fiidinaynaa biidnillah midka freezerkan gelinayno bac ku xir xagga hoose ee freezerka meesha barafka gali insha Allah 10 daqiiqo ku daa marka hadhowdi baan idin tusi doonaa qaybtaasi xagga dambe arki doontaan sidaan waxaan ku sameyn doonaa ama sidaan ugu daray doonaa insha Allah soo hada qaybtan oo hartay waa fidinaysaa
uma baahnid xataa burkani inaa ul u isticmaashid oo usha isticmaashid oo ku fidisid gacantaada ayaa saa ugu fidfidin kartaa sida aniga sameeyey ama haddaa dhibkaa badan diidaysid isticmaal usha lagu fidiyo waxaan idin tusaay waxay tahay saxankan aan ku karin doono biidnillah haisdhigin waa saxan ovenka sidee loo gelinayaa waa safe ovenka waa loo isticmaalaa kan biidnillah iska jagareey haddaa saxan isticmaal isdhahdid inuu mid ovenka safe ku yahay so hadda saxankan ku wada fidinaya ilaa xagga sare inuu qabtaan rabaa mataqaanaa uu soo gaaro burko kabacdina waxaan ku dari doonaa xaggan igala arki doontiin insha allah burki dhan waa kusoo dhameeyay hadda sida arkaysaan saxanka kusoo wada fidiyey waxaa la rabaa ilaa qeybta kore ee saxanka inuu wareegiisa mataqaanaa uu qabto ama saxan haddaa isticmaalaysid ama wax kale isticmaalaysid insha allah so xaggan waxaan ku darayaa waxaa waaye nutella isticmaalaysa insha allah ku dari doonta haddaa nutellada aysanin chocolate waa ku darsan kartaa biidnillah so nutelladaasa 2 qaado aada u buuxda aan isticmaalay intaasi kabacdi waxaan ku dari doonaa banaanagii oo noo qaboobay ayaan ku dari doonaa insha allah so banaanaga ku kordareynaa marka banaanaga ku dartid haddaa rabtid intaasi kabacdi waxyaalo kale ku darsan rabtid sidii loos soo tuntay loos la tumay xagga sare waa kaga daadin kartaa ama peanutka la jajabiyey insha allah waxaa rabtid ku darso ani hadda waxaa ku dadaadiyey in yaroo loos ah xagga sare kaga daadiyey insha allah markaasi kabacdi intan markaan marayno waxaan soo saari doonaa burkii hadayta aan gelinay xagga hoose ee freezerka insha allah hadda waxaan ku darayay aniga waa looskii oo loosaan tumay aan ku daray insha allah xaggan sorry waan ka xumahay kamerada inay shidantaa mooday laakiin may shidanin sida arki kartiin burkiin soo saaray bahalkan jiiska lagu xoqo ayaa ku xoqeysaa insha allah sidii jiiska ugu xoqeysaa marka waxaa ku xoqeysaa banaanaga iyo wixii dushooda ku xoqeysaa sidaas ugu xoqeysaa ma la rabo meelna inay ka banaanaato asaga dhan ayaa gargaarsinaysaa biidnillah weli waxaan xoogaa waxaan moodaa in freezerka aada ugu raagin laakiin 10 daqiiqan hadday dhahay laakiin insha allah moor saacado siiya waxaan ka wadaa like 20 minute meelahaasi ku daaya biidnillah kabacdina ovenkan geliyey ovenka markaan geliyey wuxuu ku jiray 25 to 30 minute meelahaas adiga 25 ilaa 30 daqiiqo intaas ku jiray kabacdi wuu nooga soo baxay macaanki saas uu kusoo baxay wallahi lagama sheekeyn karo aad u macaanaa masha allah waxaan ku darsan kartaa waxaa looga talagalay in kor looga daro maxay ahaydee custardka haddaa haysid xagga sare kaga darso ani markaan idiin tusaya xaggan custardka may oolin insha allah markii dambe gadaal kasoo gaday aan ku darsanay custardka aada ayuu ugu macaan yahay macmacaankan waa macmacaan maasha allah haddaa fridge-ka gelisid uu qaboobo custardkii qabow lagu daro bacdal afur maasha allah lagama sheekeyn karo waxaan rajeynayaa walaalaha inaa videogan ka hesheen haddaa igu cusub tahay soo dhawow aad ayaa u mahadsan tahay daawashadaada haddaa horey noola joogi jirtayna markasta waa mahadsan tahay please like-tana ha iga halmaamina ii saara insha allah videogiisa xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa amaanada ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu